cunugii waa dhiig bax yar ayuu sameeyey. Waxaan maadaama genital area ay tahay bal u kaadi macquul maane. Assalaamu calaykum daawadayaal, ku soo dhawaada codka Caynab oo aad ka daawanaysaan degalkeena Facebooka, YouTube-ka iyo adeega podcast-ga. Waa Cabdiqaadir Axmed oo idinla socodsiinaya barnaamijka. Waxaan maanta halkan ku iba furi doonaa oo aynu ku bilaabi doonaa muuqaalkii ugu horeeyay ee adeegana podcast-ga. Waxaan maanta marti igu ah Abuukar Absuge, mid kamid ah ardayda dhigata kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed. Abuukar aad ugu faraxsanahay maanta inaad marti igu tahay barnaamijkan kooban oo noqonaya barnaamijkii ugu horeeyay ee aan ku iba furi doono adeegan podcast-ga. Asxaabta muuqaalkan daawan doonana waxaan rajeynayaa haddii ay horey inoola joogeenna inay share garayaan, sidoo kale haddii ay inagu cusub yihiinna ay subscribe ay dhahaan channelka. Abuukar, inta aanan barnaamijka gelin waxaan rabaa see u aragtaa inaan maanta barnaamijkan aan bilowno. Caynab aad u mahadsan tahay, waan dhawahay. Ugu horreyn magacayga waxaa la dhahaa Abuukar Cabdul Xuseen. Waxaan ahay medical student dhigta Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed sanadkii afraad ee kulliyadda daawada iyo qaliimada. Waxaan ahay dufcaddii 10aad ama baajkii 10aad ee soo mara kulliyadda daawada iyo qaliimada burburkii kadib markii dib loo furay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed. Waan ku dhawahay podcast-gan cusub aan maanta daafurayno. Sharaf gooniyan ii tahay inaan maanta ka soo muuqdo Caynab channelkan. Waan ku faraxsanahay mar kale. Okay, Abuukar, marka inta laga yimaado introduction-ka kooban, Abuukar marka laga yimaado hordhacaas kooban, waxaan rabaa su'aashii ugu horeysay ee barnaamijka aan ku iba furan lahayn inay noqoto maxay baa kugu dhaliyay inaad kulliyadda caafimaadka aad doorato? Saan ognahay waa safar dheer ardaygu marka uu bilaabayo kulliyaddan. Marka maxay baa kugu riixay inaad kulliyadda caafimaadka ku soo biidho ood arday ka noqoto? Caynab aad u mahadsan tahay, su'aashaada aad u fahmay. Waxay ugu dhahday maxay tahay sababta ka dambayso inaad ku soo biirtid kulliyaddan daawada iyo qaliimada waqtigeedan dheer yahay, juhud badan u baahan. Sababta igu dhalisay inaan kulliyadda daawada iyo qaliimada aan doorto waxa waaye history yar oo iga qabsaday xaafadeena ama familka dhexdiisa. Waxaa jirtay haweenada ka mid ah wiil yar oo markaas aniga aad iga yar ayaa waxaa dhacday in uu mudo musaamiir wax Soomaalida ay dhahdo ama musmaar sida Soomaalida ay u taqaan. Markii uu muday kadib cunugii waa dhiig bax yar ayuu sameeyey. Xilligaas hal meel lama wada jiifin oo laba qol oo kala duwan kala jiifnay. Hooyaa i kicisay, xilli dambana way ahayd. Waan soo kacay, cunugii gargaar aan sameeyey oo meeshii lugteena aan ka duubo oo aan ka dhaqo dhiiggii tirada badnaay. Adiga keer aan ku siiyey xaafadda. Habeenkaas wiilkaas yar ila dhashay u dhaawacmay. Keerkii aan siiyey waxay ii noqotay dhiirigelin in aan mustaqbalka dhakhtarnimo aan doorto oo aan dhakhtar noqdo ayaa jeclaystay. Habeenkaas waan habeen aan ilaabi karin. Ani ahaan waxaan ugu dhalisay inaan kulliyaddan soo doorto waqtiga dheer isla markaan u baahan dadaal dheeraad ah. Maxay ayuunbaad ku takhasusi doontaa hadduu eebba idmo? Maxaana kugu dhaliyey inaad dooratid takhasuskaas mustaqbalka aad rajaynaysid inaad baratid ama aad ku takhasustid? Sababtana raaci hadduu eebba idmo insha Allah. Caynab aad u mahadsan tahay. Waxay u dhahday mar kale su'aal kale oo qurux badan ay weydiisay oo ah maxaa jeclaa lahayd dhakhtar noocee ah inaad noqotid mustaqbalka dhow? Aniga Abuukar ahaan waxaan jeclaa lahaa inaan noqdo dhakhtar oo cardiac surgery ah ama dhakhtarka qaliinka wadnaha. Iskama dooranin ama iskama jeclaanin, sabab ay ku imaatay. 2 sano u dambeysay aniga meel waxaan joogay oo polyclinic ah, markaas aan training ku qaadanayay, assistance oo kala u shaqeynayay. Waxaa dhacday haweenada ka mid ah ayaa waxaa imaaday yar dhalinyaro ah oo da'dan sodomeeyada ku jiro. Yarkii markuu soo booqday polyclinic uu imaaday wuxuu dhahay oodin baa igu taagan.
dhakhtar cudurada guud ee kulmeen waxaa lagu dhahay ECG aa lagu saaraa. ECG yani waa machine yani haartiga siduu u shaqeeyo electrically ku shaqale waaye. mashiinkiyaa la saaray, waxaa la ogaaday wadnihiisa qayb ka mid ah xididada inay xiran yihiin, isla markaana uu u baahan yahay daaweyn degdeg ah ama keer degdeg ah uu u baahan yahay. waxaa dhacday yarkii waa hospital digfeer loo referal gareeyey. waxaa la dhahay yani hospital digfeer aad ayaga ku samaynayaan procedure noocaasa u baahan tahay in wadnaha lagu furo. yacni markii aan arkay dhallinyaro aad u daayar, yarkaas da'ada sodomiyadu ku jiray dabcan yani aaday ii taabatay, waan sababta ay u dhalisay yani mustaqbalkana inaan jeclaado ama inaan doorto qaliinka iyo daaweynta wadnaha. su-aasha marka laga yimaado Abuukar had qaadataan maadooyinka anatomiga, physiologiga and so on. aan soo qabsanno anatomiga. intii aad anatomiga ku dhex jiday waxaan u maleynayaa anatomiga inaad semesterkii afraad hadduu eebba idmo aad bilaabi doontid. intii aad anatomiga baranaysay ma jireen region ama system gaar ah oo run ahaantii kaa yaabiyey ama barashadiisa aad u xiseynaysay? haddii uu jirana waan jeclaan lahayn inaad noo sheegtid. waxaa igu dhahday intaa baranaysay anatomiga, basic anatomiga, ma jiraa region kaa yaabiyey? haa, waa jiraa dabcan. intii aan ku jiray barashada anatomiga waxa aan la yaabay, waxayna ka mid tahay yani mucjizooyinka Allah subxaana watacaala jirkeena u sameeyey, regionka loo yaqaano thoracis ama soomaalida ee dhahdo xabadka. yani markii aan daraasiinayay regionkaas, yani feeraha biniaadanka yani laba nooc ay u jiraan. kuwan waxaa la yidhaahdaa true ribs la yidhaahdaa, kuwan waxaa loo yaqaanaa false ribs la yidhaahdaa. kuwa loo yaqaan true ribs, lafahaas ama feerahaas waxay ka soo baxaan vertebrada, waxayna ku xiran yihiin sternumka laftaan loo yaqaano ee ku taalo middleka oo thoraciska ku taalo. lafta kuma xirno sternumka, laakiin cad yar oo piece of cartilage ah ayaa wuxuu kula xiran yahay sternumka iyo ribka isku haya. xigmadda ka dambaysa ama muhiimaddana markii aan sii raacay waxay noqotay yani qofka bini'aadanka markii xaalad u galo cardiac arrest markuu galo ama si kadis ah markii wadnaha ay u shaqey waayaan ama shaqadii wadnaha si kadis ah markay u istaagto in qofka u baahnaanayo CPR waxa loo yaqaano cardiopulmonary resuscitation qofka u baahnaanayo. xilligaas loo sameynayo CPR-ka qofka yani markii bushin lagu sameynayo ribiska waxaad dareemaysaa in ribiskii hoos u degayaan isla markaana soo kacayaan, hoos u degayaan isla markaana soo kacayaan, taasoo marka ka caawinayso cartilage-kaas. haddii marka cartilage-kaas meeshaas uusan ku dhignaa lahayn oo labadii laf direct iskugu xirnaa lahaayeen, bony partiga saarnaa lahaa, waxaa dhici lahayd in qofkaas CPR loo samayn waayo. yacni laf in la riixo yani hoos uma degayso. marka waxyaabihii aan la yaabay waay mucjizada jirka bini'aadanka kala yaaba waaye in yani piece of cartilage-kaas oo isku hayo ribkii iyo sternumkii, si markaas qofka bini'aadanka markii la rabana CPR in loo sameeyana hoos u degayo korna uu soo kacayo, sida shaqadii wadnaha oo mechanical in la samayn karo. Abuukar, ma jirtay organ markii hore intaadan dee kulliyadda caafimaadka soo gelin oodan anatomiga iyo maadooyinka la xiriira aadan baran, ma jiray organ aad u malayn jirtay inuu abnormal yahay, laakiin markii aad anatomigii timaaday aqoontii yeelatay aad ogaatay inuu yahay normal, hadday noqoto structure-ka ama functionally aan oran karno. marka ma jiray organ noocaasa oo markii hore ka shakisanayd laakiin aad ogaatay hadda inuu normal yahay? haddii uu jirana waxaan jeclaan lahayn inaad organkaas noo sheegtid iyo sababta markii hore aad aragtidaas khaldan aad uga aaminsanayd, iminka markaad aqoontii yeelatayna aad ogaatay inuu sidaasba normal ku yahay. organka waa jeclaan lahayn inaad noo sheegtid. waa aad mahadsan tahay. su-aashan waa su-aal la yaab leh waaye, aniga iga yaabisay. yani in badanna
yani iwalwal geliso waay waxaa jirtay xilligii aan dhiganayay dugsiga sare waxaa jirtay yani waa ogtahay xilligaas waa wax badan lama yaqaano waa maadooyinkan applied subjects kala qaataa inta badan yani aqoon sidaas u faahfaahsan qofka uu leeyahay ma jirto ardayga aqoontiisu aqoon iska gaaban waxaa jirtay testiska xaniyaheena allah subxaana wa tacaala xikmadiisa iyo hadafkiisa iyo ujeedkiisa yani allah subxaana wa tacaala wax anagana anfacayo asaga naga yaqaan macnaha wixii anagana dhibaayo iyo wixii noo fiicanne allah asaga mar kale naga yaqaano xilligaas anigaan dhiganayay dugsiga sare waxaan xasuustaa testiska yani xilliga kuleelaha ah oo kuleelaha ay jiraan maarsoo kale xilliyadaas yani testiska inay hoos u degaan oo ay sameeyaan away from the body jirka aad ugu fogaadaan sida normalka ana yani jirkeenu wuxuu leeyahay temperature ah yani 37 degree uu leeyahay normal body temperature-ka waa laakiin testiska ayaga way ka duwan yihiin temperature-kaas temperature aan ahayn ayay ku nool yihiin oo ah 33 ilaa 34 buwaagta qaar qoraan xikmadda iyo muhiimaddana ee tahay yani in spermkaas la soo saarayo in uu noqdo mid fertilized ah yani kuleelka badan aan adkaysan karin aan ku sii socdo marka su-aasheedii xilligaas marka aan arko testiskii oo aad u dheeraanayo oo jirkii aad u fogaanayo waan la yaabi jiray waxaa is dhihi jiray ma abnormality aa qabtamaya ama problem ma ka jiro at same time inaa qof la wadaago ama dhakhtar aan la sheergareeyo ama familkii aabii hooye in la sheergareeyana yani waa ka xishoo jira oo waxaa is dhihi jiray yani waxaan maadaama genital area ay tahay bal ukaade macquul maane waa qarin jira okay xilliga qabowaha kuu soo haray xilliga qabowaha haddana waxaa dhacayso in muruqii oo soo aruura haddane oo u soo dhowaado jirkii u soo dhowaado ilaa abdominka u soo dhowaado ayaa dhacayso asoo markaas raadinayo temperature oo extra ah waayaaba marna wuu dheeraana marna wuu soo gaabana xaaladda ma xaalad adig kale ku haysta miya ma wax common ah waa la yaabay anoo sidii iska ah dugsigii sare waan dhammeeyey walwalkii weli way u taagan yahay dugsigii sare way dhammaaday alxamdulilah waxaan ku soo biiray jaamacadda ummadda soomaaliyeed sanadkii koowaad foundationka ay dhammaaday sanadkii labaad maadooyinka caafimaadka ah si tartiib ah ugu bilowdeen maadada oo embryologiga markii la ii dhigay qeera la siiyey waxaanu dhigahay macallin aad iyo aad u aqoon badan aad iyo aad cabqari u ah ustaad cumar qooje halkana ka salaama asagana yani wuxuuna dhahay xilliga kuleelaha ah yani testiska way ka fogaanayaan jirka yani away from the body ay sameynayaan xilliga qabowaha ahna way u soo dhowaanayaan ayadoo markaas la ilaalinayo yani spermka ayadoo la ilaalinayo temperaturekaas xilligaas waan ogaaday in xaaladan normal ay tahay kadib aan ogaaday oo waxba isnaga qaldaneen oo xaalad normal ay tahay waxyaabo kale igu yaabinayo waxay tahay labada testis yani parallel ma ahan waxaan ula jeedaa parallel ma ahan equal ma macnay islama sinno labadii yani iskuma aadano mid baa wax yar elevation ku jira wax yar yara sareysa macnaa mid wax yar hooseysa ayadana waxaa is dhihi jiray maxaalad kale oo problem ah isla embryology ayadana lagu fafaayay lagu dhahay yani markay buugii si fiican u akhriyo aan u dhaxgalay in yani la diidayo ama Allah subhanahu wa ta'ala xigmadiisa ay tahay in labadii testis aysan isku dhicin oo aysan friction aysan sameeynin ay wax yar kala sareeyaan marka dhacdadaas waa dhacdo ani iga yaabisay oo aan ula yaabay intii aan ku gudu jiray yani barashada ma kuliyada daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii koobnaa oo uu maanta marti inoogu ahaa abuukar absuge mid ka mida ardayda dhigata kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaana uu barnaamijkan noqonayaa barnaamijkii ugu horreeyey oo aan iba furno hadduu eebba idmo daawade haddii ay tahay markii kugu horraysay oo aadna soo booqato ha ilaawin inaad muuqaalkan gaarsiisid asxaabta kalete sidoo kaleetana aad inagu soo biidid adiga oo subscribe oranaya sidoo kaleetana gambaleelka furanaya si notificationska
muuqaaladeen ay ku soo gaaraan oo aad u aragtid. intaan muuqaalkan muuqaal la mida ku kulmi doonno waa aniga iyo Abuukar idin leh amaana Allah.